waxaan maanta baranaynaa sida loo design gareeyo ID kaarka si loo design gareeyo. Koorsada cashirkani waa cashir ka mid ah koorso aad iyo aad u ballaaran ee aad Photoshop ku baran doonto af Soomaali ah. Aan magaceeda ugu magac daray Ultimate Photoshop Course. Marka daawasho wacan. Koorsada si aad u heshid ayadoo dhammaystiran waxaad ku dhufataa buttonka hoos ku qoran ee Learn More ee ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa, kadibna waxaad arkaysaa koorsada dhammaystiran, halkaas ayaana kala socon kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaynu socday cashiradeenii Photoshopka Ultimate Photoshop Course Chapter 4 ayaa inoo bilaabanaya qaybtii labaad ee design-ka. Qaybtii koowaad waa iskala soo baxnay, qaybtii labaad ee design-ka ayaa inoo bilaabanayo. qaybtana waxaan rabnaa inaan si fiican u design gareyno insha Allah. waxaan horta design gareynaynaa business card, waxaan design gareynaynaa ID card iyo cover page iyo waxaan design gareynaynaa doodhay karaan noqdo maxaa la dhahay board ama billboard sida Soomaalidu. Good. Marka afarta cashir ee soo socotay ama saddexda cashir ee soo socotay waxaan uga hadli doonaa sidaan u design gareyn lahayn ID card-kan ayaan design gareynaynaa. Marka technique-gii hore ee business card-ka markaan sameeynay aan isticmaalnay insha Allah technique-gan wuu ka duwanaan doonaa oo technique ka duwan ama farsamo ka duwan ayaa isticmaali doonaa. farsamadii hore path ayaa sameeynay, pathkaas ay kadibna color ku shubeynay, taasoo marar qaarkood dhibe, laakiin ujeedkaan u sameynayo waxay ahayd inaad fahantaan pathka iyo si loo sameeyo. tookadan wax ka duwan oo ka fudud oo wax badan aad ka qoran kartaa ayaan sameynaynaa maadaama kan oo shapes badan isku darsan yahay. marka si aad u samaysatid waxaa u baahan tahay inaad shay cusub soo samaysatid. Control new ayaa leedahay. Control new marka dhahday custom cusub beel cusub ayuu geenayaa. marka mar hore xaqiiji centimeter inay calaamadan ku saaran tahay, kadibna 4.4 ku tahay, intana height-kan ay ku tahay 8.58, kadib resolution-ka uu ku yahay 300. haddii uu resolution-kaada computer-kaada aad u culus yahay 300 ka yaray oo 72 ka dhig ama 150 xataa waa ka dhigi kartaa. meeshan waan ka xumahay markaan sameynayay business card-ka waxaan iloobay in laga dhigo meeshan CMYK color in laga dhigo. maxaa yeelay shayga marba haddii la print gareynayo waa inuu CMYK ku shaqeeyo. CMYK marka waxa waaye cyan, magenta, yellow and black. waa qadda printerada ay isticmaalaan kalaradooda waay. marka RGB waxaa loogu talagalay digitalka, CMYK-ne waxaa loogu talagalay waxyaabaha la print gareynayo. marka CMYK halkan ka dhigo, kadibna create markaa dhahdid background-ka ayaan furaynaa insha Allah. marka waxaan u baahannahay marka inaan marka hore aan sameyno qaybtan ee gaduudda inaan sameyno ayaan u baahannahay. marka waxaan sameynaynaa meeshan nagu celi, meeshan aan ku laabano. waxaan soo dooranaynaa shape ayaan soo dooranaynaa. shape-ka ayaan tagaynaa, rectangle tool ayaan soo dooranaynaa, kadibna geeskan banaanka ayaan istaagaynaa ilaa geeskan kale banaanka ayaan istaagaynaa. marka shape-ka sidaan usoo doorano kadibna waxaan leenahay Control T ayaan leenahay ama free transform. Control T macnaheedu waxaan ula jeedaa free transform ayaa ula jeedaa. marka Control T ayaan leenahay. Control T markaa dhahdid kadibna right click ayaan leedahay, wrap ayaan leedahay. marka sidaas dhahdid horta marka hore intaan shaqada qabanin waxaan rabaa inaan colorka rectangle-ka colorka ka bedelo. horta cancel leh, kadib waxaan rabaa inaan colorka ka bedelo. colorka marka waxaan rabaa inaan ka dhigo colorkan ayaan isticmaalayay. colorkaas ayaan ka dhigaya insha Allah. markaan meeshaan imaano waxaan sameynayaa Control T ayaan dhahayaa, kadib right click ayaan dhahayaa, wrap ayaan dhahayaa. marka meeshaan ayaan istaagaya. marka kan ugu shisheeya ayaan qabanaya, waa soo jiidaya, meeshaan camal ayaan keenaya. kan ayaan marka haddana soo qabanaya, gudaha ku jiro, waan jiidaya ilaa halkaas camal ayaan keenaya. kadibna kan ayaan soo dhaweynaya, asagana meelaha camal ayaan keenaya. kan wuu iga fogaaday marka waa soo celinaya. waxaan u baahanaa marka kanna xoogaa yar inaan gudaha geliyo, kanna aan soo celiyo. good. marka waxaan rajeynayaa in uu ii sameysan yahay. kan wax yar gudaha geli,
kana wax yar soo celi kana wax yar gudaha geli asagana okay marka oo ii samaysan yahay kadibna accept ayaan leeyahay marka yes ayaan leeyahay accept marka dhaho kadibna move-ka ayaa isticmaalaya move tool-ka ayaa isticmaalaya gudaha ayaa daraba gelinaya marka good marka cabir aan ku qanacsanayo hadda taagan yahay marka kadib marka waxaan sameynayaa kan ayaan 3 copy ka sameynayaa marka hadda hadaan u laabano meeshan waa ujeedaa cadaan ayaa gudaha ku jiro kadibna waxaa ka hooseeya color kale oo khafiif ayaa kasii hooseeya marka waxaan sameynaynaa taas ayaa naga rabaa inaan sameyno marka kan ayaan tagayaa control J ayaan dhahayaa control J marka dhaho asaga ayaa ii doora marka colorka ayaa marka hore ka bedelaya double click ayaa leeyahay double click marka horta marka hore waxaan u baahanahay intaan double click dhihin inaan colorkii aan isticmaalayo soo doorto colorkan eyedropper tool ayaan tagayaa colorkan ayaan click siinayaa kadibna waxaan u soo laabanayaa meesheeda ayaan u soo laabanayaa kadib markaas double click leeyahay inta marka maxaa ii saaran colorka ayaa ii saaran okay colorkii waan doortay kadibna click ayaan leeyahay waa durjinaya marka waxaan rabaa inuu gadaal ii maro marka waxaan sameynayaa kan ayaan soo jeedaya hoos ayaan soo marinaya marka okay marka waa ii soo gala marka good marka meeshaas ayaan ku deysanayaa kan kadibna waxaan u baahanahay haddana inaan mid kala copy kala ka sameeyo copygaas kadibna aan white u bedelo double click ayaan leeyahay white ayaan u bedelayaa white marka u bedelay kadibna laba dhexdood ayaa gelinayaa si uu dhexda u galo kadibna soo durjinaya marka maxaa ii soo baxay marka 3 color oo kala nooc ayaa ii soo baxday marka haddii aan kan u laabano waxaad dareemi kartaa inuu dhinacan ka dhuudhuubanayo dhinacana oo ka waaweyn yahay marka waxaad sameynaysaa midkan ayaa dooranaysaa kadibna dhinacan ayaa u jiidaysaa marka wax yar oo been good hadda marka leen khafiif oo saas soo galaya ayuu ii noqday marka waxaa ii dhiman intaan markaa sameeyo waxaa ii dhiman madaxii kore inaan sameeyo oo qaybtan buluga ayaa ii dhiman insha Allah iyo qaybahan kale ayaa ii dhiman marka insha Allah casharka ku xigo ayaan ku sii wadi doonaa haddii uu Ilaahay ka raali noqdo marka wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh